gabdho reer Jubbaland oo ku nool daafaha caalamka isla markaana u midoobay caawinta dadka danyarta ayaa saakay 58 caruur agoon iyo danyar ah u qaybiyay in ka badan 5,800 oo dollar taas oo loogu talagalay ku ciidsiinta caruurta agoonta. Dalada mideeye Miskiin Urone iyo Xamdi Foundation oo ay madax ka tahay Zamzam Yuusuf Colaad iyo gabdho muxsiniin ah ayaa deeq lacaga soo gaarsiiyay qoysaskan danyarta ee ku nool degmada Kismaayo. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurta agoonta ee xaqul ciidka la siiyay ayaa u mahad celiyay gabdhaha soo dhiibay lacagta ciidsiinta caruurta. heedo waan salaamaya gabdhaha sadaqada bixiyay ilaahay qaadirka raxmaanka ajir iyo xasanaad la soo koob karna Allah idin siiyo. waan salaamaya anigu waxa weeye magacaygu Arda Gaarna Maxamed saabaxna ugu qabataan waxa Allah idin ku qabto ilaahay baa qaadir raxmaane waxa Allah idin qabto. Sahara Cali Maxamed ali dhaha habli soo baxsaday maanta oo mahad celinayna waa naga farxiyo Allah ka farxiyo $100 miya miskonton كفى $100 ها يوفر انت ما شاء الله ما بها سنة أول. شمس الشيخ شافعي ليلو موسى حانشي عاشا الشيخ حسن سالحي iyo shaaciye xaaji khaliif xaaji xasan maamoyinkii loo soo wakiishay lacagta ciidsiinta caruurta agoonta oo madasha ka hadlay ayaa sheegay gabdha dibadda jooga lacag soo diran khayr Allah siiyo dalada mideeye Miskiin Urone iyo Xamdi Foundation lacagtii la qaybiyay alxamdulillah ilaa 52 qof way gaartay qaar Allah in siiyo in lagu mahadinay waxaad qabateen ilaa xaqiisaan ka heleysaan mahad ilaaha bixiyo ilaa idinkiisa. bismillaah salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu. saaka oo axada rabadaana ay 17 tahay waxaan halkan ku qaybinay lacag 5,200 ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u baryaynaa gabdhihii lacagta soo diray meesha ka soo bixiyaan wax ka khayr badan ilaahay u galiyo miisaanka xasanaadka Allah u saaro caruurtooda iyo cimrigooda iyo cirdigooda iyo caafimaadkoodana Allah ugu ilaaliyo intii la siiyay ilaahay u calfo wax ka khayr badan ilaahay soo galiyo lacagtaas aan ku dhiibnay agoontii waan siinay gabdhaheenii oo ahaa mideeye Miskiin Urone iyo Xamdi Foundation oo gudoomiye u tahay Zamzam Yuusuf Colaad ilaahay wax khayr badan ha idin siiyo idinkana miisaanka xasanaadkana Allah idin saaro hawsha aad soo qabateen hawl fiican waaye marka waan idin mahad celinaynaa ilaahay ka sokow idinka iskala shaqada ilaahay inta idinka soo qaadayna wuu ku mahadsan yahay. waxaan salaamayaa gabdhaheena qaaliga ee isa soo xilqaamay ee u gargaaray gabdhaha agoonta ahaa inkastoo la gaari karin agoonta Jubbaland lama gaari karo laakiin in u baan ka xusnay ilaahay intuu u qadaray ah intiina maanta waan gaarsiinay oo konton iyo 5 qof ayaan hadda siinay welina ay wax kala sii dhiman yihiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inta soo bixisay oo dalada mideeye Miskiin Urone iyo Xamdi Foundation ilaahay subxaanahu wa ta'aala caalamka dhan bay ku baahsan yihiin gabdhahaas wax khayr qaba inuu soo siiyo meeshii ka soo bixiyeen Allah subxaanahu wa ta'aala wax khayr badan ugu bedelo sharta jirtana maanta Allah uga badbaadiyo عذابته uga xoreeyo awlaad ugu xifdiyo ilaahay idinkiis ku wila siiyana wax khayr qaba Allah uga dhigo qofa waxa laga yaabaa maanta bariiska inuu karsado walaashiis inay karsan kista taal in la kala gooyo waaye oo la kala qaato hadaa siiso bari ilaaha ku irsaaqay marka waxaan ogaadnay tasbiix iyo takbiir in adduunyo ka badan tan lagu helo ilaahay walaal Allah inuu fududeeyo Allah idin siiyo dadku waxaan soo aruuriyeen waa dad masaakiin oo haystaan wadooyinkooda inay kaga soo gooyeen markii la soo sheegay agoon indhaha biyo ka kara guriga anoo joogo cunto cunay oo wax walba midkay gaariin cunay